kumaanu dagaalamayn shalay buudo oo Puntland maanu dagaalamayn siyaasadeeyo waxa kano shalay kii ka soo horjeeday Puntland ee Somaliland ka madaxweyne ka noqday qaaro aku sheegay waxa moogdi wadka waaqlaysa kii Somaliland raacsana ee cararayo buudo la kula dagaalamayo madaxweyne ka noqday muxuu ka noqday miyaa ka jawaabi kartaa taa madaxweyne ka noqday Soomaa waa siyaasad tan anaga aan ku dagaalamin anaga ku sheegnay anaga aan ku dagaalam soo asxaano ma waxa ka hadlaysa kuma dagaalamayno la asxaano anaga hadda runta ku sheegnay la asxaano kuma waxaan lagu dagaalamay ma aha iga loo baato joogeen ka hadlayno siyaasad iyo adduunku wuxuu isku haystaan ka hadlayna bal la asxaano waxaan lagu dagaalamay shalayto Puntland bay anaga haynay إلى عبد حاشي عبد الله يوسف بهايو إثيوبيا كفرجلتي ساعة فربنا Puntland بينهم والرلاي مركي Puntland وصاد لينك معارض كقوى عقل الله قاضو عقل الله بنا ووا هذا القوى كوبه Puntland تيشري يروح بسنة هتيرو هرتنا هاي ما هي النقون ويوريت ترى لو والله كسياسة بنا لو كانت تطبع سياسة اللي هو كانت تتولى ولا مركز لو حرية والعارضي هي قليل بقى لو حكومة ولا حرية والعارضي بيرشل بنت اللي كويس اللي نقول عطينا رايحتي حتى أنا نقول ولا شيء كان سجارة أنا ناشة والله أنا ما تكلم معه وياه بنت اللي هي هرتني ما نقالنا هرتي عطينا هاي بنت اللي والعارضي بيكون شرك سياسة دي ورثة إنه يقول ما هي ورثة حمر باورته بيا سوغلا هذا تجربه كاغا دغتاري markii Itoobiya soo galay reergabad ku soo galay ay la baaw noqonay soo baaw noqotay Itoobiya baaw noqotay central government-na aana in aad jirin Itoobiya keenay reergabad soo fargeliyay maadaama ay soo fargeliyay wuxuu maleeyay kuma yaamin marka la ascaano maamulka fargelinteeda waxa keenay ama Puntland waa Itoobiya سومات كرن مقرأ سوريا ومقرأ مياتري ورماشة ترى ما إنه تط وحد بون ترى سياسة بسوي مع أسعة ما إنه كوارا دون أما إنه دود إسكتين ونور واحد قبيل يري يشيل بيرلو تيسوا إنه إسكتين قبيل يري يشيل بير سكولار كجلا قبيل يري يشيل بينا رو دونه سكولار كجلا هذا هرتمت بوها Puntland mid bay ahay wala soo fargeliyay Somaliland mid bay ahay Somaliland markay mid ahay isaaq mid waa wala fargeliyay isaaq dakadi warwa kuwa naga kasi isaaq dakadi berbera Itoobiya ma ka inta Puntland ay warama Itoobiya naga haysto waxa kala garanayna Itoobiya naga haysto laakiin Itoobiya ku baawar buu ugu noqdayo وداعي وقت بس إثيوبيا كبار بينهم نقول لماذا اللي بوين فرقلي لماذا اللي فرقلي Puntland الصومال لا نطيرون هاي تاسع كيمتين Puntland بورد بدل الخيال بدل يسكريسو سياسة دوما تشبتو سياسة دي Puntland بدي يدير ولا سكوا أبصلوا إما واحد غير واحد منا ما شو تقول بسلام إذا لو مات على واقع هنا في حسب حوالي على رسالة سياسة هو يقاني وين بيكاك تكتانو واحد قال لسا شيل بيار يا قبيل يا هذا ما كان ثاني وعاد قال أوربكتو عليها بتشرو Puntland Somaliland وسومالوين Puntland ما ملكي ما يروح وعلي كبعدنا تكوا كوكا يرى تجمع بركو كوكا تسمع Somaliland لو كلا تجمع Somaliland سموه إلى ريال هيستموا لي على حاجة شكل ساموه يقولوا وقروا ساموه سلانية ريال هايستي هاي ريال قريسمية رجي واقع قوين هتبع قوقعي كامل يسرح قوقعي بركة النظام بيلاي حتى النظام كاكوه دولسان واتسعود دولسان حبال عرض على قلت لك لاس عرض ويكوين تاي بوحنا كالسان لاس عرض عرض صلاة ويبع مويا أنا هتارو مع الشعب كي Puntland ايه هارتي سبشري قيمتا وغوي اقلبات waanu aragnay baawarka iyo nidaamka meesha ka shaqeeya marka intaanu qoriya qaadano leeymayno dadkeega qori caaradii iyo siyaasad baan kula shaqeynayna wallo
laascaano dalabteeda qori caaradii iyo nidaam baan kula shaqeynaa raggeedii baa jooga kitaabaan u rogrogeynaa soo in la xeerada la doonaya wax ay ku waxba taasiga wareegaysa qalin baan ku shaqeynaa qalin laascaano qalinkaas aan Itoobiya inoo leenahay nidaamkan hal la qimo haddaanu nahay Puntlanders ama aan nahay arti kitaab kale la keenaya wax nooca ay ku shaqeynaysa isaga laftooda qaar baa murqaansan oo Soomaaliya wax Soomaaliya ma jiro xoogaa yar riyaal meel baahaas waa la isku haysta meesha way wareertay marka idalow haddaad motion ka socda wax waliba evolution beelay waa era sidii communist waadi hore u jiri jiray xaaladda wax waliba nin siyaasi oo bislaaday oo go'ay mooyee nin kalena uma babacdii kare qabiil iyo xuduud iyo wadawdidaas u guraya wadawdu shay Ethiopia keenay xamar baynu ku qabanay yaa inoo fasaxay inuu Ethiopia Soomaaliya qolba Ethiopia inay qabsato kitaabo iyo siyaasad baa jira motion baa jira adduunka wax eera baa jira Soomaaliya Ethiopia xamartii quruxda badneed bay maxaa keenay hadda iga loo kitaabo yar batiraysa hartiba qeyb qola marmaray waliba qola maraysa waa Soomaali waayo waa rag iska lahayo siyaasadda Puntland qaariyada diiday xamad baa garaas iyo taradhicna sida uu fadhiyay hay ku gaduwin kan Soomaaliya la joogo Soomaaliya iska lahayo xogaa siyaasadda diidan tafadhi tadafe waa xamar qal oo joogo ka dagaalay mafna abaasheen ku dagaalamayeen buwaasay NATO isku keenaysteen Ethiopia wadda u galay baynu keenay igalo siyaasadda marba bay maraysa xaaladdu marba meel bay maraysa siyaasaddu marba meel bay maraysa Ugandis baa yimid qodob haweenadeed ma aha qabiil hoose inuu caayir iyo jiriya aadno waa siyaasaddu ku jiro political wise ay ka hadalno si nidaamsan ay wada doonno waxaynu constructive aan noqdeen destructive yaanay noqonin gebigeeduba laascaano bal ka hadlayo sanad wato in laascaano sida loo maamulo oo xageeya from Ethiopia waado tahay igalo markaynu hartinahay isaaqintu lagu soo duulo dhul inagama qaadi karo igalo de adiga la hoos dhigay waxba kaliya ku riixide hartina wadanahay intuu dagaal lagu soo qaado isaaq dhul inagama qabsan karo adawada taayirayna woobiya intuu inuu soo duulo kitaabo ma qaadan karo way oogna waxa kale waa nidaam waa siyaasad weyn oo waxa ka dambeeya reer galbeedka ka baxdina Etoobiyaanka tan lafteedana waxba uu yaa wala doonaya la yaala taaro ido xiriir ma yahay oo danta doonayso noolina caadi hadaynu soo tagno ido dhulkiya Ethiopia dhulku uu leeyahay Ethiopia ku inagu ma ixtiraamaya iyo ido waayo dhulkeenu wax ku leeyahay Ethiopia dhanna daaro ila qayb daaro ka kamid ah hartida la yiraahdo inagu jamhuuriyadda degnaa laakiin waxaan waa wax inaga weyn igalo waxay nooga dhigin inaadeen jirki waa la tagaal ka ayaa la yimid niman Ethiopia intay soo galeen ku qabsadeen dilay waay ma Ethiopia bay naga inoo jiro xaq naga qaadi jiray ma Ethiopia ma naga inoo xaq naga qaadi jiray inoo meetin waxaynu hadaynu hartinahay iyo Puntland ku yara dhaana dekedeena Ethiopia ku isticmaalin laakiin wayna maamulaan kitaabada ergoy baa wada boosaaso iyo garow iyo laascaanood iyo galkacyo ergoy baa Ethiopia ka u toobiye Mareykanka hadaad mooday igalo adigu iska wareegtay marka baasha yeeynaan dad reermiye iska dhigay aynu kor qaadno nidaamka kor ka dhigno waxa ka aynu weligeeda hayro dad si macnawiina aynu doodno inaan ruuxi ka dhigin qabiil yar oo hoose yeenaada waynu igalo inaad waynu bislaan yeena qabiil iyo jirka shalay naga Puntland dagaalamayno hartibayno ahayn koox baynu kula wada dagaalamayno shalay nidaamku sida waa ka yar duwanaa wixii way isbedeleen maanta koox kulama dagaalami karno baawar inaga weyn baawar inaga weyn baabayni marka waa inoo joogtaa inaynu baabacno dadkeennii aynu iyo qiyaamo kicino iyo inaynu qori carabi iyo nidaam iyo kitaabo yar waddo oo wax siyaasadayno inaga lafteena la noo sheegin in la saaro diiga daato waxa laga fiicnaa kitaabadeennii aynu lahaa jirnay la soo baxna ka bacdina biyaanka aynu nidaamka la nimaano war Ethiopiyano labahan sameeya Puntland iyo Soomaaliya labadaba idinka ku dhex jira tiro teegan Puntland idinka sababay